munaasabad ballaaran oo ka dhacday xarunta madaxtooyada gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa si hay'adii xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu xilka si rasmi ah ugu wareejiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibraahim Muudey iyo xubnaha sihayaasha golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka ee jooga Muqdisho. ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa dukumiintiyada kala wareegay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo muddo 50 cisho ah sii hayay xilkaas kadib markii xildhibaanada golaha shacabka iyo codka kalsoonida ay kala laabteen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre. mudane ra'iisul wasaare waxaa farxad noo ah maanta inaanu kugu soo dhaweyno xafladan xil wareejinta xukuumaddii xilhaynta ay shaqaday sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xil wareejina waxqabadkii dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda ee 2017 ilaa 2020 kuwaasoo ku salaysan dhammaantood ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo siyaasadii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddo xileedka 4 sano ah ee loo igmaday inuu dalka hogaamiyo. sida xasuusataan haddaan soo koobo ballanqaadka madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa sugidda amniga iyo arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa, dib u heshiisiinta, dib u eegista dastuurka, dib u habaynta dhaqaalaha iyo dakhli kordhinta, sareynta sharciga iyo dib u habaynta hay'adaha garsoorka, xoojinta nidaamka federaalka ah iyo hirgelinta doorashooyin dimuqraadi ah oo dalka ka qabsooma. arrimaha amniga wax badan baa ka hirgalay kana qabsoomay. madaxweynuhu markii uu muddo kooban joogay xilka hayay waxa uu tagay wasaaradda gaashaandhigga oo aawada ogeydeen inuu muddo deganaa xafiis ay u ahayd xarun ay u ahayd. waxa uu eegay sida ay u dhisan yihiin ciidankeena maamulkooda qaabka hagidooda. waxa uu muuqatay inay lagama maarmaan tahay in ciidanka qaranka la diiwaan geliyo oo la ogaado. qof kasta fayl yeesho, qof kasta raadraac yeesho, qof kasta meel loo maro yeesho, xuquuqda uu dalka ku leeyahayna uu helo maadaama waajib iyo xuquuqi saaran tahay. arrintaas madaxweynuhu waa ka dhabeeyay. waxaanu xukuumadda faray in la diiwaan geliyo dhammaan ciidamada qaranka dhinacyadooda kala duwan. maanta waxaynu haysanaa diiwaangelinta ciidamada oo raadraac sugan leh, tababarkoodii oo la teeyay, qaybihii kala duwanaa ay lahaayeen oo aad loo xoojiyay, karti iyo awoodna maanta u leeyihiin in ay wiiqaan al-shabaab iyo nabadiidka amnigana gacanta ku hayaan. waxa kale oo shaqo weyn aynu ka qabanay iyadoo laga turjumayo siyaasadii hagidii madaxweynaha dib u heshiisiinta dalka. oo xasuusataan markii la doortay madaxweynahaba in magaalada Gaalkacyo oo aan anigu nabadeynteeda ka shaqeyn jiray 2016 ay horseed u noqotay dadku labada dhinacba inay isaga gudbaan. dib u heshiisiinta kaana qaatay gobolka Mudug, Shabeellada Hoose iyo Galguduud iyo meelo kale oo dalka ka mid ah, iyo in aynu salka u dhignay qorshaha dib u heshiisiinta qaranka oo maanta hage inoo ah. dib u eegista dastuurka oo dhammaystiran dhinacyadeedii xagga farsamada guud ahaan cutubiyadii ay ka koobnayd oo shaqo weyn oo iyadana la qabtay ah. maamulada iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduna ka wada qayb qaateen. dhammaystirkiisuna wasaaradda dastuurka iyo xukuumadda iyo hay'adaha dastuurka u xil saaran ee labada ahba ay u taalo inay meel mariyaan. dib u habeynta dhaqaalaha wax badan baad ka warqabtaan oo guddida dhaqaaluhu horseed u ahayd. wax badan oo shalay ugu dambeysay intii xukuumadda xilgaarsiintu IMF iyo World Bank deyn cafiska mashruuca aynu kala shaqeynaynay sida uu hore ugu maray, dakhligu u kordhay, miisaaniyadii 2017 iyo maanta 2020 faraqa weyn ee u dhaxeeya ka warqabtaan oo ogtihiin. waxaanu dhaxalnay 25 wasaaradood 26 wasaaradood xukuumaddu ka mid tahay. 25 ka mid ah dakhli ururin jiray. dhowr iyo 10 shirkadoodna magaca dowladda federaalka Soomaaliya ayay ku ururin jireen dakhliga oo u ekeyd in nidaamka dakhliga ama cashuuruhu ay qayb ahaan barafitaasi yihiin. shaqo weyn baa laga qabtay. maanta waxa ay wasaaradda maaliyaddu hormuud u tahay nidaam midaysan oo dakhli ururin ah iyo serviceka ama adeegyada la qabto oo meel ku ururay. garsoorka iyo cadaaladda dib u habeyntiisa ayaa wax badan laga qabtay. golaha adeega garsoorka oo meel maray, golaha shacabkana hor yaal jaranjarooyinka u harayna inay marta ay tahay iyo
guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyaduna ka mid ah halbeegyada dowladnimada muhiimka u ah. mudane ra'iisul wasaare, aragtida madaxweynuhu waxay ahayd dalkan in siyaasad iyo sharci lagu kala hago. intii xukuumaddani shirtay 67 sharci iyo heshiis oo caalami ah ayaa maray, 23 ka mid ah way dhaqan galeen oo madaxweynuhu uu saxeexay. marka waxay tusaysaa in sharciga iyo nidaamku halbeeg iyo hage u yihiin dalkan. waxa aynu ku shaqaynayno Soomaali ku wada joogi karto kuna mid ahaan kartaa ay tahay sharci iyo nidaam. iskaashiga caalamiga ah ayaa qayb kale weyn ah. madaxweynuhu hormuud ka ahaa isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika oo ay macnaheedu tahay isdhexgalka ummadda Soomaaliyeed ee Geeska Afrika degta. Soomaalida Geesku qoomiyad ahaan waa ummadda ugu ballaaran juqraafiga ay degan tahay ummadda Geeska Afrika oo dhan. taas waxa hormuud ahaa madaxweynaheena waana hirgashay isdhexgal dhaqaale iyo isu socod maanta inuu ka hana qaado Geeska Afrika. qof kastoo Soomaaliyeed meel kastoo uu joogaba waxay u tahay faa'iido weyn. doorashooyinka ayaa ugu dambeeyay baarlamaanka iyo xukuumadduba waxay ansixiyeen sharcigii doorashooyinka. ha yeeshee si dalka la isugu hayo oo la isugu jiido waxa hadda aynu haynaa heshiiska siyaasadeed ay madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyadu kala saxeexdeen oo hirgeliyeen golaha shacabkuna uu shalay ansixiyay labada aqal ee baarlamaanku aan idhaahdo cafwan ay hirgeliyeen shalayto oo ay meel mariyeen. waxaan ugu hambaliyeynayaa golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed go'aanka taariikhiga ah ee shalayta ay noo meel mariyeen, waayo doorashadu waxa ay kaabtaan nabadda, in nabad iyo cod lagu kala baxo halkii qori iyo khilaaf iyo dagaal iyo rabshado ay iman lahayd. marka almiidaan waasic waxaynu samayn doonaa oo hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu sharcigaas. haddaynu ku xisaabtanno heshiiska waxay inoo furayaa fursadna inoo siinaya in miidaan ballaaran oo lagu tartami karo aynu helno. ugu dambeyntii waxaan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaa sharafii ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27kii bisha Sebtembar 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxa aan mahad gaar u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo igu aaminay mas'uuliyaddan qaran. mudanayaasha golaha shacabka ee kalsoonidooda i siiyay waxaan uga mahad celinayaa kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamuud Guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya, howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha. qowlihii adkaa ee aad ku wanaagsanaa ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ee la soo dhaafay. insha Allah hadduu Allah subhanahu wa ta'ala raalli ka noqdo waxaan soo dhisi doonaa dawlad tayo leh oo dardar gelisa howlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee inaga sugayaan shacabka Soomaaliyeed. si aan wax uga qabto tacadiyada lagula kaco haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa, taasoo muddo badan ugu soo noqnoqotay. waxaan magacaabi doonaa insha Allah qabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu uga shaqeeyo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka. waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahad celinayaa ansixintii iyo meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hannaanka doorashada ee la isla ogol yahay. waxaan bogaadin iyo dhiirigelin u dirayaa ciidamada qalabka sida walaalaheen oo naftooda u horaya amniga dalkeena. sidoo kale waxaan iyadana mahad gaar ah siinayaa ciidamada AMISOM oo qayb ka ah nabadeynta Soomaaliya iyo beesha caalamka oo garab taagan qarankeena Soomaaliyeed. ugu dambeyntii ballanteenu waa Soomaaliya oo nabad ah, siyaasad ahaan xasiloon, dimuqraadi ah, leh dhaqaale horumarsan, nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad kula nool. waadna mahadsantihiin.
xil wareejinta maanta ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa meesha ka saartay dalabkii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre uu gudbiyay ra'iisul wasaaraha cusub kaas oo ahaa in uu diyaar u yahay inuu xilka ku wareejiyo.